waxaa la sheegaa inuu nin la kulmay mas uu ku dul dhacay dhagax weyni isagoo iska dhex wareegaya keynta waxaanu ka codsaday masku inuu caawiyo oo uu dhagaxa ka dulqaado uu ka dulqaaday dhagaxii oo uu caawiyey markuu sidaa uga dulqaadayna waxa uu yidhi maskii waan ku qaniinayaa sababtoo ah waxaan ku dhaartay inaan qaniino qof walba oo i caawiya ninkii ayaa yidhi isagoo yaaban waan ku caawiyey bee sideed u rabtaa inaad i qaniinto maskii ayaa yidhi maya waan ku qaniinayaa ninkii ayaa yidhi hadday sidaa tahay ina keen saddexda xayawaan ee ugu horreeya inaga soo horbaxaa ayaynu weydiinaynaa keena saxsane hadday idhaahdaan maskaa kaa saxsan waan ogolahay oo wadi qaniini way israaceen waxaana ka soo horbaxay sac waana u sheegeen waxa kala haystaa sacii baa yidhi bini'aadamka waan wanaajiyaa oo caanaha siiyaa haddana abaal iima hayo oo wii gowracaa ee ha sii deyna qaniin way ka tegeen oo socodkoogii ayay sii wateen waxaana ka soo horbaxay dameer sheekadii ayay uga sheekeeyeen waxaanuu ku jawaabay bini'aadamka waan u adeegaa oo wax walba waan u qaadaa haddana way garaacaa oo uu icaayaa abaalna ma laha ee ha sii deyna qaniin socodkoogii ayay iska sii wateen ilaa ay la kulmeen yey ugana sheekeeyeen sheekada waxaana uu ku yidhi yeygii idima rumaysanayo ilaa aad i tustaan siday wax u dhaceen oo aad dib u matashaan meeshii ayay ku noqdeen maskiina wuu iswadhay ninkiina dhagaxii weynaa ayuu dusha ka saaray siduu markii hore ahaa yeygii ayaanu ku yidhi sidaas uu ahaa markaan arkay yeygii ayaa yidhi sidaa uu yahay uga tag oo ha ka qaadin dhagaxa waa ay ninka mar dafiro wanaag aad u samaysaa mar labaad inaad caawiso ma mudna